Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada saaxiibayaal channelka Nasiir Graphics mar kale iyo muuqaal cusub. Maantay muuqaalkeenan waxa aynu ku baranaynaa cashar muhiim ah sida aad ciwaanka muuqaalkanba ku soo aragtay. Balse ka hor inta aynan u guda galin muuqaalkeenan, fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan oo ay tahay markay kuugu horeysay, ku soo biir oo ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelka Nasiir Graphics. Si aad uga mid noqotid, fadlan taabo calaamadda gaduudka ee subscribe badhanka, sidoo kalena gambaleelka furo si muuqaal waliba aynu soo gelino uu kuugu soo dhaco. Waa hagaag markanina aynu bilaabano casharkeena. Waxaa laga yaabaa in ciladani ay ku haysato ama qof saaxiibkaaga ay haysato. Haddii aynan ku haysanina, laga yaabaa beri ka maalin inaad la kulantid. Ciladu wax kale ma aha foldaro waxaa jira markii aad tiraadid tir saarahan oo aad delete ka taabatid ku dhahaya item not found ama kaasoo diidaya in aad delete gareysid. Waa virus ama folder uu markaa virus qaadi weeye. Sidoo kale delete-ka ayaa laba nooc kala ah. Folderaha gabi ahaanba in haddii wixii la tiro uuna recycle bin-ka gelin, ama in wixii markaa aad tirtidna uu recycle bin-ka galo. Tusaale ahaan hadeer folderahan laba qaab baan u tiri karaa. Haddii aan dhaho right click oo aan delete ka taabto, ama keyboard kaliya aan delete ka taabto, wuxuu u aadayaa qaybtan recycle bin-ka oo hadhow dambe waxaan dhihi doonaa restore, kadibna wuxuu imaanayaa meeshii desktop-ka ayuu dib ugu soo laabanayaa. Sidoo kale gabi ahaanba folderahan haddii aan rabo in aanan arkin una markaa recycle bin-ka una ii gelin, waxaan taabanayaa shift iyo delete ayaan isla qabanayaa, kadibna waxaan leeyahay enter. Folderahaasi gabi ahaanba computerka waa uu ka tirtirmayaa, xitaa recycle bin-ka ma uu gelayo. Waa kaasa laakiin folderahani labada qaab waa uu diidayaa. Inaan delete gareeyo oo aan del dhaho, wuxuu leeyahay try again. Tusaale ahaan haddii aan shift iyo delete-ka aan isla qabtana, waxa uu leeyahay are you sure you want to permanently delete this folder? Yani ma hubtaa in folderahan gabi ahaanba aad ka takhalusaysid? Yes haddaan dhaho ma uu tirmayo, weli waa uu taagan yahay. Haddaba marka ciladaasi oo kale haddii ay ku qabsato, sidee u xalinaysaa? Marka ugu horeysa waxaad imaanaysaa qaybtan searching-ka ah, kadib waxaad ku qoraysaa cmd, waa command prompt, kadib right click ayaan leenahay, run as administrator u dhufanaya, kadibna yes ayaan leeyahay. Shaashadan madow markay sidan kuugu timaado, marka ugu horeysa waxaad aadaysaa this PC ama my computer ayaa tagaysaa. Kadib qaybta programmingska ee ka soo kaca computerka ay ku jiraan ayaa tagaysaa local disk C-ga loo yaqaano. Kadib laba mar ayaad click ku siinaysaa. Kadib waxaad kasii tagaysaa users, kadib userka computerkaaga magaciisa ayaad tagaysaa. Anigu hadda waa Nasiir Yare, isaga ayaa ku dhufanayaa. Kadib folderaha markaa adigu aad doonaysid madaxa adkaa ee ku tirmi waayey, meesha uu ku yaalo waa inaad xasuusan tahay. Anigu hadda wuxuu ii yaalaa desktop-ka. Haddii folders kale ama gudaha uu ku yaalo, meeshuu ku yaalo ayaad adigu ka raadinaysaa. Laakiin aniga hadda desktop-ka ayaan keensaday oo desktop-ka ayuu ii yaalaa. Kadib desktop-ka ayaan laba mar click siinayaa. Kadib qaybtan kore, qaybtan ila fiiri ayaad ku dhifanaysaa. Kadibna right click ayaa ku dul leedahay, copy ayaa leedahay. Kadib waa iska soo minimize gareynayaa. Halkan ayaan imaanayaa shaashada madow. Kadib halkan ayaan waxaan ku qoranayaa cd, kadibna space ayaan taabanayaa. Kadibna halkan ayaan ku paste gareyn doonaa, oo halkan ayaan furayaa, edit baan leeyahay, paste ayaan ku leeyahay. Kadib waxaan leeyahay enter. Intaa kadib waxaan sameynayaa halkan waxaan ku qorayaa dir oo ah directly, kadibna space ayaan leeyahay, kadibna slash, kadib x ayaan taabanayaa oo enter ayaan leeyahay. Qoraaladan faraha badan aad u jeedid waxa weeyaan waa desktop-kaaga iyo wixii folder ee markaa ku saaran. Wax walba oo desktop-ka yaala ayuu halkan keenay. Soo marka aniga halkan waxaan ka dhex raadin doonaa folderaha ii gaarka ah ayaan rabo, igu madax adkaaday aan rabo inaan tiro. Magacan ii fiiri waa Camtasia. Halkan ayaan imaanayaa oo waxaan leeyahay Camtasiahan iyo highlight garee. kadibna halkan tag
kadib edit, kadib copy. Halkan marka waxaan ku qorayaa hoose waxaan ku qorayaa RMD oo macnaheedu tahay remove directly, RMD, kadibna space, kadib /q, kadib space, kadib /s, kadibna space, kadibna halkan ayaan kusoo basti gareynayaa. Waxaan leeyahay edit, kadibna basti. Markaan sidaas sameeyo oo inta aan sameeyo waxaan leeyahay enter ayaan taabanayaa. folderha waa uu tirmayaa dabcan gebi ahaanba lama arki doono. kadib enter ayaan taabtay oo waxaad aragtaa folderihii in uu meesha ka baxay. halkan folderihii inoo yaalay Camtasia, sidaasi ayaan gebigiisii baan uga takhalusnay. haddii uu isaga madax adag yahay, innaga ayaa kasii madax adag. waa tahay saaxiibayaal, muuqaalkaasi ayaan jeclaystay in aan idinla wadaago. fadlan muuqaalkan haddii aad ka heshay like garee, haddii aanad ka helin dislike garee, waayo labaduba muhiim ayay inoo tahay. sidoo kalena channelka hal qof ama laba qof la wadaag si channelku u baaho. waan idin salaamayaa. muuqaalkan muuqaalkiisa xiga. Assalaamu calaykum.